السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هريرة وحصو إسلامي سنة كي تدوات هجرية وحونا لجوغي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكغيريودي بلاوغي سنة كي كو يتوانات وانا أفر سنو وحونا وريي كن شن بقول تدوات نساقال حديث أحاديث تمأهن أو كليا وحاو النبي صلى الله عليه وسلم كو هدلي waxaa ka mid ah dhacdooyinkii dhacay waqtigiisii oo la soo sheegay inuu ka aamusay waxaa ka mid ah wixii caadada u ahaan jirtay nabiga sidoo kale waxaa ka mid ah muuqaalada dharkiisa iyo waxa uu cuni jiray iyo waxa ku dhacay oo xanuuno iyo dhaawacyo dagaal ah 4 sano waa 1460 maalmood marka Abu Hurayra maalin walba waxa uu maqli jiray laba dhacdo oo uu soo tabin jiray nabiga wuxuu dadka kaga duwanaa in la xiiseynayay sida uu u tukanayo u weyseysanayo u soconayo u fadhiisanayo u ganacsanayo iyo xitaa sida uu aamusayay marka yaab ma lahan in si gaar ah la isku taxalujiyo in la diiwaan geliyo noloshiisa oo dhan Abu Hurayra masjidka ayuu seexan jiray halkaas ayuuna dagaalada ka aadi jiray soo tabin jiray sida wax ay u dhaceen wuxuuna arki jiray wabdiyada nabiga sallallahu alayhi wasallam masaajidka oo kula shiraayay iyo waxa ay isdhaafsanayeen salaadaha oo dhan ayuu la tukan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii dhacayna uu fiirsan jiray Abu Hurayra waxa uu geeriyooday sanadkii 57 ee hijriga saxaabo badan ayaana ka dambeysay mana jirin meel ay saxaabada ku sheegeen in Abu Hurayra uu been sheegay markii uu noolaa ilaa markii uu dhintay midna haddaba aynu eegno waxa aynu u sameynay barnaamijkeena maanta qarniga 21aad waxa aad u fudud in la baahiyo kuturkutaanta iyo barabagandaha laga alifayo dadka diinta u soo halgamay kuwaas oo liddi ku ah diinta doonayana in ay iimaanka dadka islaamka daciifiyaan haddaba waa maxay waxa Abu Hurayra laga alifay kuwaas oo doonayaan inay shubahan ugu furaan waxa jiray in Umar bin Khattab radiyallahu anhu ka joojiyay Abu Hurayra in uu ahadiista wariyo in kastoo tabintaas ayna ahayn mid xoogan waxa caado u ahayd Umar bin Khattab inuu dadka kula dardaarmi jiray in ay Quraanka wax kale ugu mashquulin waxa kaloo jira in Umar bin Khattab markii uu macallimiin u diray Ciraaq uu kula dardaarmay in ay ahadiis badan warinin asiga oo doonayay inay dadka ugu mashquulin Quraanka wax kale haddaba waxaan kula talin lahaa marka aad aragto shibaho la doonayo in ummadda sida daroogada loo qaadsiiyo loona daciifiyo iimaankooda aad iska baarto si aysan xaqiiqada kaaga duufsan waata uu Hitler dhahay beenta ku celceli iyada run isku bedelaysa sidaas daraadeed waxa ay mulxidiinta baraha bulshada ku soo qorayaan ma ahan kaliya inay necab yihiin islaamka ee waxay doonayaan inay ku duufsadaan balse iska baar oo raadi xaqiiqada hadii aadan karin aadan awoodin in aad barto xaqiiqada ha fiirin hana dhageysanin warkooda sababta aan ku leeyahay ayaa ah hadii aad xaqiiqada raadiso waxa ku kordhayo iimaan waxaadna raadisay wax aadan weligaa ku fikirin waxaana sidaas kugu kordhayo cilmi iyo iimaan balse hadii aadan baarin oo aad akhriso warkooda kana caysa baraha bulshada siina dabagelin xaqiiqada ayna kugu keeni karto marka ay su'aalaha kugu farabataan ay naftaada ku weydiiso ileen ma baarin xaqiiqada taas oo kugu keeni karto in aad adigana mulxid noqoto ama alkood ilaahay nagama dhige sababta ay mulxidiinta u faafiyaan ayaa ah in ay qalbiga ku bukaan ayna doonayaan in ay ku saameeyaan ileen ciriiri ayay dareemayaan haddaba walaal waxa kaliya aad iskaga difaaci karta ayaa ah in aad xoojiso iimaankaada aadan iloobin ducadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ahayd Allahumma ya muthabbit alqulub thabbit qulubana ala diin Allah qalbiga rogo qalbigayga ku sug diinta waxaan dadka muslimiin ka codsanayaa mulxidku ma u weydiiyo su'aalaha si uu u ogaado xaqiiqada ee hana caayina hana la doodina marka ay shubaha soo furaan adiga dadkaada ugu dig oo raadi xaqiiqada soo nixir albaabka shubahada lagu furay islaamka السلام عليكم